الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. aad baad mahadsantihiin waxa weeyaan waqtigii soo dhamaaday ayaynu isu nimi goobihii dalku dhammaan hadday xidhmeen lixdii bay xidhmeen intooda badan inta safku sii joogo ee sii jirayeyna waxaan maxayday askartu ay qabaan laguna tababaray inay xagga dambe istaagaan safka qofka ugu dambeeyay istaba taagaan halkaa ilaa intuu ka dhammaanayo safku ay maxayday halkaa taagnaadaan markuu safku dhammaadana waa la xidhayaa waxaan idinku wargelinaynaa wax kasta sidii loogu talagalay ku dhaceen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baynu 100 jeer iyo 1000 jeerba u mahadnaqaynaa ilaahay inoo suuro geliyey inoo dhameeyey inakoo nabad qabna inakoo maxayday amnigi iyo ku dhammaystiranay nabadgelyo ee goobihii dalka 1642 bay ahaayeen way soo gabagaboobeen muhiimadda ugu weynina waxa weeyaan ha soo gabagaboobaane maxay ku soo dhammaadeen maxay ku soo xidhmeen nabadgelyo ku soo xidhmeen meelo yar way dhacday oo imanka tuulo yar ama goob ka mida burco nin bay xabada nin kaga qaraxday dhaawac yar baa jira wax yaroo sidaas laba askari wax yaroo noocaasi way jiraan oo aan badnayn laakiin ma hayno wax dhimasho ah wax dhaawacyo badan ah wax khilaafa min gees ilaa gees galbeed bari koonfur iyo waqooyiba waddanka oo dhan waxaynu uga dabaaldegaynaa dhammaystirkii doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan 13 Noofembar 2017 oo ah maalin taariikhi ah kuna weyn qarankan somalilan hambalyaanu idin leenahay intii ka qayb qaadatay intii ka shaqaysay intii codaysay intii loo codeeyey intii gaadiidka u waday iyo dhammaanba qof kastoo ka qayb qaatay hambalyo waa maalin taariikhda somalilan ku sudnaan doonta oo ah maalin aynu ku faani doono insha allah bismillaahi kariim oo aynu dooran doono oo caawa way tahay madaxweynaha 5 sanadood ee soo socda qarankan xukumi doona isagana waxaanu leenahay ilaahay kugu gargaaro markay soo baxdo jawaabtu xagga rabbi waa laga ogiyey ilaahay wuu ogiyey inakuma ogin laakiin waynu ducaynaynaa saddexdaa murashax kii soo baxaba ducaynu raacinaynaa waajibaadkii way guteen muwaadiniintii somalilan codbixiyayaashii waajibaadkoodii gute waxaa laga sugayaa waajibaadkiisii mudanaha soo bixi doona sidaa loogu baxay sidaa loogu ololeeyey sidaa loogu shaqeeyey inuu qarankan ugu shaqeeyo oo u noqdo hayin hogaamiye qarankan 5 sanadood ee soo socota annagu komishan ahaan waxay noo tahay farxad weyn inaanu gudanay xil qaran oo weyn xilkaasuna noogu soo dhammaaday annagoo nabad qabna annagoo ku faraxsan inuu noo soo dhammaaday xilkaa weyn culays weynina waa naga degay caawa waxaan hambalyo idinka wadaa 5 komishanare kale oo anigii Siciid Cali Muuse aanu saacad ula hadlaynay minid ula hadlaynay xiriirka iyagu toos ahaa iyagana waxaanu idinka wadnaa salaan way naga maqan yihiin insha allah ilaahay inoo keeno iyagoo nabad qaba iyagiyo shaqaalaha ka soo shaqeeyayba codbixinta taasaanu codbixintii doorashada madaxweynaha waxaanu leenahay inakoo nabada idinkoo nabada inaynu isu soo guryo noqonno hadda aynu joognaba durbaba way soo gaadheen goobihii qaar ka midii degmooyinkii laga xukumayey waxaa bilaabmi doonta
in la tiriyo tiradaasu markay dhammaato ee ay ku dhammaato goob kasta waxaa loo diyaar garoobi doonaa in loo soo raro degmadii ka koobnayd ama degmada goobtaas hoos timaado oo noqon doonta 22 degmo doorasho oo iman doonaan dhammaan ku soo hoyan doonaan goobaha laga cod bixiyay markay yimaadaan degmada waxa way soo dhaxayaan markaan in yar idinka taabano hadda markay dhammaato way xidhanayaan albaabka markay albaabka xidhaan waxa gudaha ku jiraya 7 xubnood 7 xubnood oo noqon doona 4 xubnood oo komishanka doorashooyinka qaranka u shaqeeya oo kala gudoomiye ku xigeen xogeeye iyo hubiye iyo 3 xubnood oo ka socda 3 xisbi qaran 7 xubnood ayaa iyagoo wada jira albaabka xidhan doona leerka siraadan doona bilaabin doona inay tiriyaan maxay sida loo kala helay codadka markay dhameeyaan way kala saxeexanayaan 7 xubnoodba saxiix bay leeyihiin haddaanu saxiixaasi jirin oo annaka 4 xubnood way ku khasban yihiin inay saxiixaan waayo iyaga shaqada wada 3 xubnood ee wakiilada haddii uu saxiixi waayo form ka la yiraahdo D1 oo foomka lagu ururin doono xogta codbixiyaasha waxay noqon doontaa inuu cabasho raaciyo foom kala barbar socda oo sharcigu uu ogol yahay xeerku uu ogol yahay hadduu form D1 ka diido inuu saxiixo xubin ka mid ah 3 xisbi qaran wakiiladoodu waxa sharcigu uu ogol yahay xeerku uu ogol yahay inuu cabasho qoro foomkaasina uu yaalaa hadduu hor yaalaa kaasuu soo qoranaya cabashadiisu waxay soo raaci doontaa sanduuqa gudihiisa ayay soo raaci doontaa waxaana la siin doonaa mid kasta copy waxa ka soo baxay jadwalka jawaabta ka soo baxday ama resultka ka soo baxay xubin kasta oo maxay ka socota xisbiyadu waxay qaadanaysaa copygeeda copyga originalkaana waxa soo qaadaya gudoomiyaha goobta isku baabuur bay soo raacayaan ma kala harayaan waayo waxa la ilaalinayaa sanaaduuqda isla caawa waa la soo guureyn doonaa sanaaduuqda waxa soo raacaya 7 xubnood oo aanu diin sheegnay iyo ciidankii ilaalinayay ilaalada ahaa ayaa soo galbin doonaa ma kala harayaan waayo sanduuqu waa kala xisaabinayo waa ka maxayday aynu qiimaha weyn maanta inoo leh in la ilaaliyo la xifdiyo la barbar galo oo aan loo kala harin si ay arrinteenu u noqoto waadax ama transparent oo aanu qofno qof shakiin waxay ku soo hoyan doonaan ka ugu dambeeya bari subax insha Allah bismillaahi kariim degmadiisii buu ku soo hoyan doonaa halkaas oo ay ku sugayaan maxay wakiilo xisbi oo cusub oo fresh ah oo dardartooda qabaa ku sugaya waa qoriisu dhiibkii wakiiladii soo shaqeeyay ee koobaa ka soo shaqeeyay waraaqdii koobigii uu haystay wuxuu dhiibayaa ka cusub ayuu ku wareejinayaa iga qabo halkaa ka sii wad halkaasuu ka wadayaa degmada haddana lagu tirinayaa iyadoo la wada joogo loo batay oo gudoomiyaha komishanka degmaduna uu joogo 2 xubnood oo ka socda kale oo ka socda xisbiyaduna ay joogaan halkaas haddana laga tirinayaa wixii cabashaa lagu eegayaa marka sanaaduuqda aanay cabasho jirin la dhammaystiro ayaa waxa loo jeestanayaa hadday jiraan sanaaduuq cabasho la socotay oo karantiinka la geliyay ayaa ugu dambeynaya waa la dhexda la dhigayaa waa la wada arkayaa dub baa loo tirinayaa hadday xisaabtu sira dhaaftay iyo hadduu qalad ku jiraba degmadana saasay uga soo baxaysaa insha Allah berri habeen dambe ayay degmooyinka aanu filaynaa inay ka soo dhammaato oo ay ku soo biyo shubato gobolada halkaasay ka soo soconaysaa waxay imanaysaa xarunta qaranka 17 insha Allah filaynaa inay yimaadaan hadday ugu soo horeeyaan ama 16 dhamaadkeeda ama 18 haddaanay cabashooyin badan jirin ama roobabin xanibin waxaan idinku bishaareynaa in waqtigan aynu taaganahay ay noo soo dhamaatay codbixintii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee 5 sanadood soo socda lagu dooranayay qarankoo dhanina maanta heeganaha hambaliyana aanu qarankoo dhan u dirayno iyo idinka soo jeeday maanta iyo xalayba ee hor taagnaa ee aan daalin ee hortayada aan arkayno tacabka idinka muuqda idinkoo doonaya warka farxadda leh iyo hididiilada leh inaad adduunka gaarsiisaan idinkana naga wakiila gaarsiiya
adduunka gaarsiiya waxaynu qabsannay iyo waxaynu yeelannay iyo halkaynu marayno wabilaahi towfiiq. muhiimadda ugu weyn halka imika jirtaa waxa weeye markii hadda wararkii ugu dambeeyay aanu xogta soo qaadanay goobta isgaadhsiinta ee halka idinka dambaysa wararkii ugu dambeeyay waxay noo sheegayaan goobaha qaarkood inayba ka bilaabatay tirintii oo mar hore lixdii markii la gaadhay oo aynu daqiiqada ka joogno la xidhay waa goobihii aan safku markaasi taagnayn. taasi farxad bay noo tahay. waxa farxadda kale ay tahay caawa anaga weliba laba farxadood bay tahay oo idin sheegayaan. mid waa guusha iyo nabadgelyada iyo codbixinta doorashadii oo si nabad ah inoogu dhamaatay. waa intii aynu sugaynay dad badan baa wadnaha farta ku hayay laakiin alxamdulillahi rabbil caalamiin komishanka doorashooyinka qaranku waa dadaalay, xukuumaddu waa nala dadaashay intii taagteed ahayd xag dhaqaale iyo xag ammaanba. waayo ammaanka aynu ku seexannay ee doorashadaas inoo ku dhacday ayaa xukuumadda ayaa ka mas-uula. waxaan kale oo iyana nala gargaaray hawshaasi oo nala qabtay haddaan nahay komishanka waa xisbiyada qaranka oo la-aantood iyagu ah kuwa tartamaya haddana nala shaqaynayay. waxay nagala shaqaynayeen si allaale sidii ugu wanaagsan ee suurtagal ah oo ay hawsha aanu qabanaynay ay u noqoto mid lagu guulaysto oo guul aynu ku gaadhno. waana tan aynu caawa halkan alxamdulillahi rabbil caalamiin annagoo ku faraxsan aanu idinku sheegayno in si wanaagsan oo nabada meel walba aynu uga dabaaldegayno. hadda dhowaanna aynu dabaaldeg kale samayn doono kadib marka aynu raacino natiijada madaxweynaha qofka ku guulaystay. taasi waa midda kale aniga waan idin sheego farxad bay tahay baan idin soo maaha. farxad labaad farxadda labaad ay tahay waxa weeye maanta ay 13 tahay bisha 11aad maalinta dhashay ma waxa weeye qoyska reer Cali Muuse caawa wiil baa ku soo kordhay maanta maasha Allah. marka taa qudheed farxad weyn ba caawa ay tahay daalkii hayba way iga baay runta marka idin sheego. marka taa qudheed waa farxad labaad alxamdulillahi rabbil caalamiin. waxaynu rajaynaynaa in inta inoo dhiman oo ah inta ay goobuhu ka imanayaan goobihii lagu cudbixiyay ay ka imanayaan oo imanayaan degmooyinka in iyaguna si nabada goobahaasi ay ku soo gaaraan degmooyinkii. marka goobta lagu soo tiriyo goobtii degmadii baa la keenayaa, degmadii baa haddana lagu tirinayaa oo lagu eegayaa wixii natiijadii ka soo baxday goobaha. marka alxamdulillahi rabbil caalamiin warka marka ugu horeysa ee aan wax wara helo ee cusub ee soo baxa meesha ugu horeysa ee aad ka ogaanaysaan waa goobta tan aynu caawa taagannahay. halkan kamaradihiina iyo reediyooyadiina iyo qalabkiinu diyaar haydin ahaado internet waateenu alaabi kale waateenu xidhnay internet way noo furan tahay. marka halkan baynu isku soo noqon doonaa insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. shaqo kastoo la galaa waxay leedahay kolley iska horimaad wuu imanayaa. waayo haddaan shaqada la isku qabsan ama la iskaga hor iman ama la isku qaylin ama aan dhibaato maxayde dhici lahayd laga hortegin way maxayde imanaysaa. way dhaceen dhacdooyin dhacay laakiin markayna soo gaadhaanba waxaanu amar siinaynay taliyaha booliiska si uu u sii daayo. waayo maanta umaynu baahnayn umana baahnin buuq badan. imakadan waxaan ka imi idinku halkaa joogaan idinka tegey degdeg war igu soo dhacay ahaa meel baa la boobayaa ama qaldamay ama qaylo ka soo yeedhay oo askartii isku hortaagay shicibkii. waan tegey waan soo kala dejiyey. markaa way imanaysaa
meesha hadduu tacab yaallo hadday shaqa taallo waxa imanaya isku dhac way imanayaan iska horimaad way imanayaan laakiin waxa weeyaan xal ma lagu raadiyey haa xisbiyadu hal xisbi uun maaha saddexda xisbiba way cabanayeen waxyaabo kala duwan bay ku cabanayeen waxyaabo kala duwan bay noo keenayeen dacwooyin kala duwan bay noo keenayeen waanu xalilaynay waxaan se ku kalsoonnahay hadda halkaasoon fadhino inaanu dhammaan ama badankoodii xalilnay wixii ay ku kala cabanayeen xisbiyadu